السلام عليكم وصاحبك شاهد بيساني وليغا ما isku dayday iyadoo dayax jiro inaad banaanka u baxdid marka aad banaanka u baxdid oo dayaxa aad fiirisid waxaad ogaanaysaa ruuxdaadu inay nooshahay wali waxaad ogaanaysaa inaad qaflad ku jirtay waayo 24 saac waxaynu ku mashquulsannahay taleefanka waxaynu ku mashquulsannahay wax aanan farxad ka keeni karin marka aad habeenka dayaxa uu jiro ama habeenka mugdiga uu jiro aad banaanka inta u soo baxdid aad istiraadid hawo fiican qaado waxaad ogaanaysaa meesha dhabta ah ee aad joogtid si walba aad u murugaysan tahay wax ceeshkaaga aanan ahayn ee aanan kuu qorneen weligaa heli maysid haddii ay kuu qoran tahay waxay doonto ha noqoto ama shaqo ha noqoto ama qof aad jeceshahay inaad wax wada cuntaan ha noqoto ama waxaad ku haminaysa ha noqoto haddii ay kuu qoran tahay waxaad ogaanaysaa marka aad banaanka u soo baxdid oo aad keligaa tahay in waxaasi ay kaaga maqan yihiin keliya in waqtigoodii aan la gaarin laakiin haddii aad mar walba qolka ku jirtid mugdiga ah taleefankana aad isticmaalaysid ama asxaab beena la socotid mar walba waxaa noqonaysaa mid farxadda uu dunida ka lahaa aanan heerka gaarin mar walbana murugo dareema waxaan kula wadaagayaa oday waxaa jiray tuulo ku noolaa wax uu mar walba raadi jiray sida uu u farxi lahaa adduunkan aan ku noolnahay haddaad hal wax daba dhigatid waxaad ku weynaysaa waxyaabo aad u tiro badan wixii aad soo qaban weydid waa loo kaadiyaa waxyaabo kale ayaa lagu mashquulaa waxyaabaha kale inta aad ku mashquulshan tahay wixii aad raadinaysay waqtigoodii ayay imaanayaan odayga tuulada uu deganaa oo dhan waa laga bartay waxa uu raadi jiray inuu farxo dadka uu tuso inuu hal maalin faraxsan yahay mar walba farxad raadiyo waayaa wax walba isku dayo marka dambe wuxuu noqday qof aan biti lahayn oo aan nasiib lahayn tuuladii oo dhan waa la isku sheegay heer waxaa la gaaray odayga markii la arka laga dhuunto si nasiib xumadiisa aysan dadku waxay aamineen haddii qofkii la socdo uu xataa nasiib xumo ay ku dhacayso odayga sidaa wuxuu ku gaaray 80 sano asoona waxba soo qaban maalinta dambe asoo darjiin iska fadhiya meel fadhiya oo qoslayo baa dadkii la yaabeen waxay dhaheen odaygii maanta waa qoslayaay maxaa ka qosliyey waa la waraystay waxaa la yiri maxaa jira oo aad maanta ku qosashay markaasuu yiri maanta oo aan 80 jiro intaas waxaan raadinayay qosolkan kaliya aad hadda iga aragteen ee aan qoslayo waxa uu yiri waxa aan raadinayay kaliya 80 sano qosolkan hadda iga aragteen oo aad la yaaban tihiin qosolkaasina waxaan isdhahayay waxa uu ku imaanayaa farxad ee isma dhaheenin in qosolkaasi uu aniga iga imaan karo iyo aniga sidaa iska dhigo waxa uu yiri inta aan farxad raadinayay waxaan waayay buu yiri inaan reer dhisto waxaan waayay buu yiri inaan shaqo helo waxaan waayay uu yiri inaan asxaab samaysto dunida oo dhan waxaan ku noqday kali si aan farxad u helo haddii aad hal wax isku mashquulisid waqtigaaga ayaa kaaga lumayo tusaalahaasi waxaan u soo qaatay haddii maanta niyadaadu ay ku jirto arrintaasina mar walba aad ku murugaysan tahay oo ay isdhahaysa arrintaasi meedhan u dhacdo waxa laga yaabaa waqtiga inuu kaaga lumo waxa laga yaabaa in maskaxda ay kaaga lumto waxa laga yaabaa jismiyan inaad u liidatid hal waxa isku xirin hadday noqon lahayd shaqo haddii noqon lahayd inaad meel kale tagtid oo aad meesha aad joogtay aada ku qanacsaneen haddii aad waxyaabaha qaaska ah ee bini'aadanka looga baahan yahay ee number 1 tahay inuu qofku reer dhisto inuu shaqo helo inuu wax barto haddii aad waqtigaaga waxyaabahaas ku mashquulisid wax walba oo intaasi ka dheer waqtigooda haddii aad calaf u leedahay way ku imaanayaan waliba lugahaaga ayay kugu imaanayaan haddii ay kuu qoran tahay laakiin haddii aad wax maskaxdaada gelisid waxaa dhacaysa in sidii odayga 80 sano farxadda kaliya raadinayay markuu 80 gaarane kadib waayay waxyaabihii aasiga u ahaa nolosha oo kale ayaad noqonaysaa nolosha waxaan ku dhihi lahaa qorshe koowaad iyo qorshe labaad samayso labadaas qorshe isgarab wad waayo waqti aad u tiro badan ayaa haysataa maalin iyo habeen qorshihii koowaad haddii ku hagaagi waayo qorshaha labaad waa qasab inuu hagaago xitaa hadduu hagaagi waayo qorshe kale ayaa sii samaysanaysaa waayo noloshu aad bay u gaaban tahay haddii aad hal wax isku xirtid waxa ku weynaysaa farxaddii waxa ku weynaysaa shakhsiyadaadii marka aan ku dhahayo qorshe koowaad iyo qorshe labaad samayso ha ku dabaqan xiriirka oo maanta haddaa istiraado qorshe koowaad iyo qorshe labaad samayso macnaha wiil haddaa tahay ama gabar haddaa tahay aa istiraadid laba qof isku dulwad oo qofkaani hadduu hagaagi waayo kan kale ku biir waxaa laga yaabaa maskaxdaada inay ku hagaagi weyso noloshuna waxaa guulaysta qofka daacadda ah oraah baa oranaysay daacadi ma hungowdo haddii aad meel ku hungowdine waxaa dhacaysa meel ka wanaagsan inaad heshid وصاحبك شاهد بيساني
haddii aad igu cusub tahay subscribe-ka wixii fikir haddaa haysid commentiga waad igula wadaagi kartaa meel walba aad dunida ka joogtid waxaan ku leeyahay allah kugu xifdiyo dadaal waa gaaraysaa